cutubyo ka tirsan ciidamada Jubbaland yaa waxay fuliyeen hawlgal qorsheysan kaas oo ay ku fuliyeen goobo mucayan ah oo ay ku sugnaayeen fadhiisimo u ahaa al-shabaab kooxda nabadiidka ee dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ka shaqeysa goobahaas oo ay kamid ahaayeen Yoontoy Buulaguduud iyo Wirkoy dhammaan goobahaas gacanta ay kaga dhignay oo aan kala wareegnay si wanaagsan baan ugu guuleysanay goobihiina annaga hadda ciidankana ku sugan wax khasaaro oo meeshaas laga soo gaarayna ma jiraan xaalad saaka iyo sida uu hawlgalku u dhacayna sidaas oo ah markasta xaaladda waanu bedelaynaa insha Allah hadii la yiraahdo marba marka dambeysana waa sii horumarinaynaa hawlgallada aan sameeynayna waana sii kordhinaynaa walaayada al-shabaab waad arkaysaa hadda maanta ilaa iyo 40 kilomitir ayaan hawlgal ka soo fulinay waa meeshii ugu dheereyd Wirkoy marka maalinta ka dambeysana waxaan rabnaa inaan tagno Kabsuuma iyo Jilib inaan tagno insha Allah hadii la